وأنا كوماندوس غرغر guutada 12aad ee ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee Commandoska Gorgor ayaa maanta tababarkii heerkiisu sareeyay ee uga socday dalka Turkiga ku soo gabagabeeyay halkaasi iyadoo markaasi munaasabad loo soo xirayo tababarkaasi lagu qabtay dalka Turkiga muxuu ka dhigan yahay heshiiska ay wada galeen dalalka Turkiga Pakistan iyo Saudi Arabia falanqeyn ayaan iyadana ka eegi doonaa iyo sida uu saameyn ugu leeyahay geeska Afrika iyo Soomaaliya intaba soo dhawaada muuqaalka like sarshi saarad maasantii ciidanka Commandoska Gorgor oo dabcan ah ciidanka ugu tayada sareeyo ciidamada ku sugan dalka Soomaaliya qaybahooda kala gedisan ayaa markan waxa ku soo biiraya cutub cusub oo tababar hadda u soo dhamaaday kuwa oo qalabkoodii mar hore laga soo dejiyay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka guutadan oo la yiraahdo 12aad ayaa maanta waxa tababarku ugu soo gabagaboobay dalka Turkiga taa oo mudooyinkii u dambeeyay halkaasi ay ku qaadanayeen waxbarasho heerkeedu sareeyo oo la xiriirto dhanka ciidanka habeena ka hor ayaa la arkayay markab weyn oo sida gaadiidka gaashaaman iyo hub noocyadiisa kala gedisan ka oo ka soo shiracday dalka Turkiga inuu ku soo xidhay dekada magaalada Muqdisho halka oo looga dejiyay gaadiid aad u fara badan oo kan ciidanka ah ka oo la rajaynayo in guutadan cusub ee soo qalin jibisay lagu qalabeeyo si ay markaasi wax uga bedelaan howlgallada looga sifeynayo khawaarijta guud ahaan dalkeena waxa kale oo iyana jira guutada 12aad oo hadda ku xareysan xerada tababarka ugu weyn dalkeena Turkiga ku leeyahay ee Turkisom kuwa iyana dhawaan dhamaantood loo qaadi doono dalka Turkiga si ay halkaasi daraasada qaybteeda sare ay ugu qaataan ciidanka Commandoska Gorgor ayaa waxa ay maraan laba tababar sida caadiga ah tababar waxay ku qaataan dalkeena gaar ahaan xerada Turkisom halka oo ay ku dhameystaan tababarada asaasiga ah deetana markii ay ka qalin jabiyaan waxa loo sii qaadaa dalka Turkiga si ay markaasi daraasad heerkeedu sareeyo oo tababarka ciidanimada ah ay halkaasi ugu qaataan guutadan 12aad ayaa iyana dhawaan waxay ku qalin jabiyeen xerada Turkisom qaybtii koobaad ee tababarka dhawaana waxa loo qaadi doonaa dalka Turkiga maanta heshiiskii ugu weynaa oo ay galaan dalalka ugu awooda badan dhanka dunida islaamka ayaa waxa uu ka dhacay magaalada caasimadda dalka Saudi Arabia ee Riyadh heshiiska waxa qalinka ku wada duugay madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Pakistan Shehbaz Sharif iyo dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia Mohammed bin Salman heshiiskan oo si public ah loo shaaciyay ayaa waxa uu dhigayaa in dalalkani ay heshiis dhameystiran oo iskaashi amni ah ay markaasi wada saxiixdeen qodobka ugu weyn heshiiskan ee ku jira ayaana ah in haddii saddexdan dal mid ka mid ah uu weerar la kulmo ay ka dhigan tahay in saddexda dal labada dal ee kalena weerar lagu qaado yacni waxa weeye saddexdaasi dal waxay wadaagaan hal dal oo kale mid ka mid ah hadii la weeraro waa in dhamaantood weerarka lagu qaaday ayay ka dhigan tahay dhowr wadan ayaa heshiiskan walaac weyn ka muujinaya oo ay saameyn toos ah ku yeelanaysa waxaana ugu horeeyo dalka Mareykanka oo gacanka Carabta oo Sacuudiga ugu dhaqaale roon yahay ku joogay in uu iskaashi amni ama difaac uu siinayo si markaasi uu sanad walba balaayiin dollar oo uga qaato sugitaanka amnigooda hadda waxa uu dareemayaa Mareykanku in ku tiirsanaanta amniga Mareykanku aysan sii jiri doonin lacagtaasina ay hubanti la'aan ku soo dhacday kadib markii iskaashigan amni uu dhacay taa oo laga yaabo boqortooyadu in ay wax weyn ka bedesho ilaalinta amnigeeda ee ku tiirsan Mareykanka ku tiirsanaanta Mareykanka ee amniga ayay khaliijku xaqiiqsadeen inaysan ahayn wax sii jiri kara kadib markii ay Israel iyo Iran dagaaladii dhexmaray iyo Mareykankuba ay saameyn xooggan ku yeesheen khaliijka taa oo khaliijku ay xakameyn waayeen danaha Mareykanka ee markaasi iyo dagaalada Iran ku wajahan oo talooyinkooda la dhageysan waayay sidoo kalena si buuxda looga difaaci waayay gantaaladii isdaba joogga ah ee Iiraaniyiintu ay ku weerarayaan gudaha dalalka Carabta waa dalka labaad ee ugu awooda badan xagga ciidanka dawladaha ku jira midowga NATO iyo dalka kaliya ee nuclear ka haysto ee Islaam ah ee Pakistan
iyo dalka ugu dhaqaalaha weyn dunida islaamka ee boqortooyada waa dalalkii ugu awooda badnaa dunida muslimka marka laga tago dalka Iran oo isaguna ah dalka afaraad ee isaguna awood weyn leh ee muslim ah. saddexdan wadan iskaashigooda waxaa soo dhex galaya dalal badan oo ka faa'iideysanaya. dalalkaas waxaa ka mid ah Soomaaliya, Qatar iyo dowladda la aqoonsan yahay ee Yemen. dabcan dhammaan dalalkaasi waxay xiriir wanaagsan la leeyihiin dalalkan siyaabo dadban. tusaale ahaan dalka Soomaaliya waxa uu xiriir wanaagsan la leeyahay dowladda Turkiga, waxa uu xiriir wanaagsan la leeyahay boqortooyada Sacuudi Carabiya. maalmahana waxaa hadalhayn weyn dhaliyay heshiiska iskaashi ee Soomaaliya iyo Pakistan ay wada galeen oo la xiriira sidii Soomaaliya looga taageeri lahaa in militarigeeda awood weyn loo yeelo. taasi waxay ka dhigan tahay in iskaashigan harkiisa Soomaaliya wax badan oo faa'iido ah ay ka heli doonto. waanu eegi doonaa waxyaabaha ka soo baxa mustaqbalka.